hawshan way socotaa Stadium Muqdisho cid joojin karta male mashruucyadaanu annagu wadno dawladdu wado wax saameeyna kuma laha shabaab iyo argagixisadu mana joojin karaan mashruucu soconaya runtii waxaanu amaanaynaa wasaaradda dhalinyarada iyo isboortigu horumarka ay ka samaysay dhinaca isboortiga waad ogtihiin in banaadir stadium la sameeyay prime ministerku inuu dhul badan oo dhalinyaradu ku ciyaarto gobolada uu maalgelin ku sameeyay oo baydhabo ugu dambeysay uu iyadoo qaranka jeebkiisu yar yahay oo lacag ugu deeqay meelo badan oo stadiums ama meelo dhalinyartu ku ciyaarto si isdhexgalka bulshada iyo nolosha iyo farxaddu ay dib ugu soo noqoto waad ogtihiin in kooxdii qaranku ay ka raysay wadamo meelaha ugu horeeya Afrikaanka kaga jira marka niyadda wanaagsan horumarkaas iyo dib u dhiska dalka ka socda ee tiyaatarka ka socda koonas ka socda madxafka qarabka maktabada qadarka ka socda meelo badan oo gobolada ka socda caabudu waa jaamacadda ka socda cidina ma joojin karto waxaan uga digaynaa hay'adaha maragtay warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo dabcan dadka Soomaaliyeed ba inay propaganda u sameeyaan argagixisada ayna propaganda u sameeyaan baan uga digaynaa waxaanu na ballan qaadaynaa in stadium kan uu mardhow dhamaan doono haddii wax ay jiraan dawladdu waxay baari doontaa haddii company-gu uu ama qadaraaska ku haystaa uu shaqada hakiyay ama heerkii lagu heshiiyay ka yar uu ku wado waa la baari doonaa hadday ku cadaato inuu dambi galo talaabay baa laga qaadi doonaa sidoo kale waxaan baari doonaa warbaahinihii baahiyay factiskay u hayaan shaqada inay joogsato ayaa iyagana laga rabaa wasiiradu hadda waxay nagala hadlaysay in ay doonayso inay soo celiso 30 sano kadib in la leeyahay Soomaaliya gurigeedii laguma ciyaari karo sida hadda Djibouti ay walaalaheena ay ugu ciyaartay waxay tiri ciyaarta soo socota halkan in lagu qabtaan rabaa marka taas way fishikayagu wixii hakad shaqada ku jira waanu baaraynaa laakiin waxaanu u sheegaynaa shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ba in shaqadaani soconayso stadium kale shaqadiisu meel fiican marayso dhamaad uu ku dhow yahay waxyaalaha dhiman la dhameystiri doona aad u